waddanka isbedel uu dhici lahaa isbedelkaas muxuu ahaa ciddi diidana waa didda cid doonaysa muxuu ahaa talada Soomaaliya inay maraqsato cidna laga yeeli maayo muxuu ahaa talada Soomaaliya inay maraqsato cidda doonaysa cidda markaa dagaalka hurinaysa dagaalka ha joojiso wuxuu ahaa intaasaa lasoo dulqaadanayay oo loo dulqaadanayay oo waxay qarrabay Cabdisalaan barnaamijka ma arkaysa macnaheedu kugu soo celin doona hadaad la socoto Cabdisalaan uu mahadsan yahay walaalayaal dhagaystayaal daawadayaal ma arkaysa dad baa waxay weydiinayaan aaway lafta gareen magaalada Baydhabo ayuu abtigiisi farmaajo u joogaa farmaajana waxa meel ku xidhay qadar sidaas awgeed mucaaradkana kuma soo biiri karo haddii qadar iyo masaarida ay heshiiyaan markaasi waxa weeye hadda ciyaarta Masar ay dul joogtaa Soomaaliya dhagaa fura baasha Masar ay u guurtay yaa Ilaahay yaqaan macnii mar waa Imaaraati mar waxa weeye Kambala mar waa Masar Soomaalidu mar waa Sacuudi mar waa Addis Ababa maanta ciyaarta waxay dul joogtaa xaaladda wadcigan hadda lagu jiro Barimooji Masar bay joogtaa maxaakiimtii oo kala soo socota xabad baa sanka la iska gelinaya toogma ma taala meesha waa la isxabadaynaya xamar baa lagu dagaalami rabaa Ilaahay dadka badbaadiyo ama aaway lafta gareen aaway raxweyn lafta gareen Baydhabo joogaa intana ma aadi karo xisbigan boos celis ii noqo abtigiisa yiri haddii lagu aflaxana ma arkaysa macnii booska wuxuu u celinayaa farmaajo 2029 dalka madaxweyne farmaajo ka ah xasan uu uga kacaya haddii ay shaqayn weydana teendhada nin walba nasiibkiisu bursan laakiin waxa ka soo hoos baxday in dawlad ku meel gaar ah lagu soo dhiso Masar kubadda ma fahamtay mise ma fahmin marka lafta gareen aaway dadka ku haay lafta gareen aaway dadka ku haay lafta gareen raxweyn intuu ka tagay Soomaali ka tagay Mirifle ka tagay 8 ka tagay 8 ka tagay Hariin ka tagay hoon iyo waraasile ka tagay lafta uu ka dhashay idimoole oo la shiray maantay iyo shalay geel bay qasheen quraan bay akhrisanayaan saraakiishii meel walba joogtay haye markaan kursiyaana loogu yaas difaacno this is what's going on hada ma fahmaysaa aaway lafta gareena ku haysaa weydii lafta gareen u tag go ahead and ask wuxuu ku leeyahay waxaan sagootinaa UNICEF qofkii Soomaaliya u qaabilsanaa sida uu sagootay baa loo sagootinaya I tell you that ina runta u noolaatid macnaheedu diidin adiga no please runta u noolow macnaheedu runta hadiidin runta dadka raxweyn ku ay aaw lafta gareen aaw meeshu idin dhigay maxaa jira waxaan weelayay wallahi ne waa noo goysay way been man kuma waliya been martan inaad kuma wali martan idin soo xiseen inaad ku dhufto maya adiga waxa waa toorida hore ma ahayna gadaal ma bitaqaanidbo runtii horta waxa waaye arintana lafta gareen kulay digli mirifle waa ay ka tashanayaan macal aadanow midda hadda ay sheegaysay Masar ay u wareegtay aan leedahay Masarna ani waxaan ku ogaa iyada naftirkeeda mid la soo adeegsaday inay tahay oo imkaaniyaad saas u weyn haysanin ayadaaba waxay u dhaxaysay Imaaraadka iyo Qatar iyo Sacuudiga u dhaxaysay sideedaba Masarta marka aniga Masar ani waxaan filaa in ay dad iyada naftirkeeda dalaal ay tahay dad u adeegayso Masarna maanta waxa waaye iyada kaligeeda inay Soomaali soo gasho ama ismaal geliso ma awoodo jabhadna maanta hadii ay wadaysan in Masar loo soo marmaayna Masar kaligeeda toos ma qaabili karto midda kale oo aan ku dhihi lahaa oo arintan hadda Ilaahay kuma darnaade ay digli mirifle runtii waa nasiib daro aniga waxaan iska jecleen oo ay fiicnaa lahayd in maanta ninkan lafta gareen hadii bashalay oo Xasan Eelay oo ka argagaxay runtii aan waxaan u qabaa meesha in maanta wax oo qof miisaan saas u leh inuusan aheeno in la iska dulqaado oo masiirkii digli iyo mirifle uusan farmaajo gacanta ku hayn masiirkii digli iyo mirifle inuu maanta farmaajo uusan go'aankeeda uusan qaadi oo maanta uu ka gaari karin taasna waa arin aad iyo aad u muhiim ah ninka maanta dadkiisa qiimee waay ninka maanta tolkiisa qiimee waay ninka maanta Ilaahay kuma darnaaday dadkii uu u dhaartay u adeegi waay oo ilaa iyo hadda mar adeer iyo abtile taagan runtii ani waxaan aaminsanahay ninkaas nin siyaasad haya maaha
lafta gareen nin siyaasaddiisa oo maanta Soomaali raja future mustaqbal Soomaali kale ma aha siyaasad Soomaali mustaqbalna kama aha nin maanta oo u dooranayana maanta haba yaraatee oo maanta xil ama soo saara karana maanta uma maleenayo haddooba oo farmaajo uu soo saaranayo asiga iskiisa waaye laakiin waxaa fiicneed inuu caqli yeeshto war maanta siyaasadda waa lagu keenaa laakiin adaa lagaa rabaa inaad isdhistid adaa la rabaa inaad ishormarsiisid adaa la rabaa waxtarkaaga inaad muujisid laakiin haddaa dhahdid beri hebel i keenay hebelkaas aan keliya aan abaalkiisa u gudaa oo wixii dadkeyga iyo tolkeyga waxaygana maanta aan dhihi lahay waxay agteeda ka yihiin male taas sharaf dare u tahay marka waxaan qabaa Soomaali kulitaba iidana alaheeday sugaysaa kulitaba oo min kulli dhiqin farajan Allah farajna waa u furma macalaadanu muslimiintana waxa waay mar walba way aniga su'aal baan ku weydiinayaa macni jabhadan hadda macni Soomaaliya chapter 7 ay toos u gashay kumeel gaara loo noqday xabad baa ka dhacaysa xamar jabhadii ay idin ku jiray idinka hadaatiin digli mirfle macnaheeduna jabhadda sorta dad noogu jira ma laha qof oo maanta oo qofka markuu asaga raaciye yahay oo asaga ba hunguri raadinayo oo go'aan lahayn qofkaas qof adiga ku tirsan ma ahaanayo qofka haddii jabhadaas dadka ku jiran waa dad anagana loo soo adeegsanayo oo maanta dana oo markaas digli imrifle sawaan kan ciidan haddii laga rabo wiilal inoo soo xareey laga rabo haddii laga rabo in dhulkii oo meelihii dadkii ay qoryaasha haysteen inuu sheega laga rabo waa un shaqo rufiyaannimo waay ninkii oo xataa dadkaas la qaraabanayo oo la socdana rufiyaannimo ugu jira laakiin nin maanta masiir waxa ugu soo dhawaa oo aad isdhehaynin ninkan geesi waaye inta waaye balaayo waaye nin maanta go'aan leh waaye aan dheeri kan oo ahaa oo lafta gareen ah meeshuu isfadhiisiina waa u jeednaa wixii asagana ka sii liitay awal wax kale laga sugayaanba jirinba ani hadda maanta siyaasi digil iyo mirifle oo aan dhihi lahayo oo maanta hadda dowladda ku jiro aan wax qabanayo aniga lama muuqdo laakiin kolaytabo dad waa iska dhici karaan inay soo baxaan mar walba arinta ay kululaato oo rijada ay liidato dad ayaa markaa ilaahay kuma darnaaday xidigooda oo soo baxa laga yaabaa digli mirifle in dadkaasna ay ku jiraan oo siyaasiyiin qaarkood ay yihiin oo haddana saameyn weyn oo sida hadda ay sheegaysay odaygii oo digilka ahaa oo ka cabsoonayay xasan sheekh maxamuud midkaas oo kale ma fahantay laga yaabaa haddii markaas uu garab helo aad ku talinaysay kaasoo kale garab laga yaabaa inay wax dhaqaaqaan ma fahantay marka waxa waaye runtii digli mirifle Allah u maqan Soomaalina haddii digli mirifle haddan waa lisaga tegay Soomaali naftirkeeda iyada xaaladeeda hada ku jirtee ayadana kulitaba in loo duceeyo wax walbana Soomaali waxay dawlad ay ka dhalo weysay waa digli mirifle maanta gobolkiisa sida Puntland camal hadduu u xirto runtii waxaan qabaa aniga hawiye inay cantuuftooda gadaal ay u dhunjinayaan ee dawladnimana ay aad iyo aad markaas ay u daneynayaan laakiin inta saakadan ay socoto oo afgooy wixii ka soo baxo dad ay cunayaan ayna kala qaybsanayaan baraaba si rabo loogu samaysanayo marka sidii rabo loogu dhaqmayo jidadkan isbaare ee taalo iyo waxaan tuugadan iyo mooryaantan iyo waxaan ay meesha ay ku jiraan ani uma maleenayo hawiye inay dawlad ay Soomaali in ay ka ay ogolaanayso inay si nidaam ugu dhalato iyo ma aha ay ma muuqdo saanay ay ka dawlad ku yihiinba waaye su'aasha ugu dambeynta aan ku weydiinayo waxay tahay jabhadan hadda soo socotaa de macni dalkii iyada la wareega rabta hadday ku guulaysto waxayna u badan tahay inay ku guulaysan doonto hub culus la soo wadaa imkaaniyaad dhaqaale xasan waa la dagaalami rabaa hadda marka haddii xasan xisbigiisa ay ku jirtaan ma arkayse macnihi de xasan dagaal buu idin gelin Soomaan wuxuu idin leeyahay jabhadan ka hortaga maxaa dheefteen jabhadiina wax kuma liidiin xagee jirtaan idinku والله كاس وحواي ان ديلا midkan lafta gareen iyo kii kale forliifki adeerkiisa ahaa labadooda u dagaalam laakiin digli mirifle haddiina loo imaadane anaga labadaas bursada leenahay jidkay ka baxeen oo u sheegayna xaggii ka baxeen aan leeyahay ka daba gaar hadaa qabsan kartaan qabsada nimankaas noloshada ku qabanaysan ku qabta
waxaa leediin miya keligii cunto ay keligaa celceliyaa leediin idinka waxaa leen xaggoo ka baxay xagga asagoo dhahay war maxaa ii sheegteen waa bafakala maya dhawo xaggu horle u sii socdo dadkan dad toosan waay dad fiican waay wallahi dadkan dad nidaamsan waay waa meesha haddaba noo sheegeen waxaa leedahay marka taliya wiilkiisoo hadda meelaha lagu soo sawiraya agaasimaad tahay macnihii baydhabo af maxaa ku qodbadaynaya gabdho af maxaa aqoonin u qodbadaynaya iyo taliya shub iyo hadhowdii idinku waxay leediin xaggay mareen maay anaga xisbi ma banaqaan xisbigan shalay anaga ma ogeen ayka iskooda u galeen anaga waxaan leenahay abgooyaan soo istaagayna ilaa raali ahaada walaalayaasheen intay ka baxeen nimankii xaggay ka baxeen odaygii ilkaha dhaadheerayna xaggoo ka baxay asii cunugiisa koo adeerku u ahaayeen dhankaasoo naf ka raadiyey bal sii racdeesta dhulka nadiif waaye ammaana ka jira ininkale waaye hore u wata adinku waxay leediin dabadeena ka banaanka maya xisbi ani kuma jirno xisbiga ma difaacaysaan miya xisbiga maya war wallaahi waa la sheegaa wallaahi hadday kala baxaan xataa ay dhahaan war anaga hal meel isku maraacayne labada jid ee ka kala baxeen xataa waa u sheegaynaa waxaa leenahay koo jidkaasoo ka baxay koona intoo ka baxay asii cunugiisa israaceen mararka ka gaara wax badanna ma haysanay ka gaara ma fahamta anagana waa kana dad nabadda ogolaan ahan haya maasha allah waa fiicantiin ininka inta sii jooga ininka dhib ma qabtiin horle ha uu sii sheekh shariif laakiin af mayga uu sii bartayba hadda gabar galadiina uu qabaa marka dhibaata maba jirtaba miya ma dhibaata maba jirta macnaadan ad haba isku mashquulin dhiiqada ninka qastay oo aftigiisa aan dheelaa magaciisa zoona farmaajo leh hadduu u ordo ma ogi ama ha difaacaan dadkaas kale marixaanka dorab ha difaacaan anaga shaqa kuma lihin anaga waa sheegaynaa awal boos celis ninkaas u ahay mo anaga nooma ahayn marka xisbigaas uma dhimanaysaan idinka xisbiga waaba sheegaynaaba ninkii hadduu guulaystana boos celistiisa ahaa haddii laga guulaystana jidkoo maraan sheegaynaa anaga ma qarinayno macna aadanoo turubka waa la fahmay marka bes waa aad iyo aad buu mahadsanyahay walaalkaa isaga sheekh shariifna afmayga aad u yaqaan hadda ma arkaysa macna inta mareen haye uu leeyahy waayahay cabdullaahi isaaq ayaan soo qaban doonaa oo studio Southern Media Corporation inaga soo wacay waqtigu waa gabagabo waxaan u malaynayaa 10 daqiiqo wax la mid ah ama 15 daqiiqo 20 daqiiqo wax noocaas ah ay dhiman waa sii dhaqaaqaya biidnillaahi baari cabdullaahi waa wacnay studio kolley ma arkaysa ma jawaabayo waxaan rabaa inaan soo qabto walaal kale oo ina soo wacay isagana Janice inaan siina Suleymaan nimay dhahaan oo macni ma garanayo laakiin isaga ina soo wacay Janice aan siinayna Suleymaan Sheekha u qoran haduu joogo studio Janice baan u siin doonaa walaalayaal markay siyaasadda way isrogtay siyaasadana daqiiqad walba way isgadisaa annagana macni kuma shaqeyno markaysa macni waji iyo wax kale waxaan ku shaqeynaa macni siyaasadda meesha markaasi ay joogto shacabka Soomaaliyeed inaan xaqiiqada u soo gudbino taasana asal ah ama maxamed cabdullaahi farmaajo nimanka masaarida aad bay u baadagoobay stuudiyaad joogtaa dad fara badan baa ku dhageysanaya ee waana soo wacday waa kugu soo celinay maxaa ku dari lahayd siyaasadda meesha ay u guurtay haddii aad la socotay hello ma hadlaysaa waa ku maqlayaa nololkii idaacaddaad ku jirtaa idaacadda ma ka hadli rabtay way walaal hadalkaaga isdaba dhigo waqtigu koobay haye hadal kulli hadda say waxa u socdaan waa u jeedaa doorashadii hadda qofna waa jirtaa xasan sheekh xasan tii kale oo maaradkana waa u jeedaa gooni u shirayaan haddana wasiirkii balcadna waa hadlay isagana waxa waaye soo dhaweyn uu golol fadinayay marka waxaas leeyahay aniga inay xasan sheekh wuxuu wada inaysan soconaynin ay doorashadooda in la aadi doono aad iyo aad walaalka isaga uu mahadsan yahay raygiisu waan u dhageysanay dhageystayaal daawadayaal barnaamijkeena halkaas ayaanu ku soo afmeeri doonaa haddii Allah uu dalay oo ka raali noqdo laakiin waxaan rabaa inaan sheego sheekadu waa hadha way xumaatay ma arkaysa xasan sheekh maxamuud
dagaal ayaa lagu qaadayaa dagaalkaas isaga ah cidda ku guulaysanaysa anigu ma garanayo laakiin macnihii carigu nabad maahan waxaan rabaa inaan caddeeyo laakiin mar kale iyo mar saddexaad masaaridu markay shireen in ay yiraahdeen markay dooranayeen jabhaddan in ay aad u baadigoobeen maxamed cabdullaahi farmaajo oo ay aaminsan yihiin nin muxtarima inuu yahay gadmaaya hogaamiye dhaba inuu yahay macnaa qofku wuxuu yahay in la sheego way moogtahay markay shireen waxay dhaheen annaga farmaajo in aan fici lahaa waayo waxay leeyihiin farmaajo waa nin waxna diidi kara waxna yeeli kara waxay ku leeyihiin waa nin waxna diidi kara waxna yeeli kara oo ma arkayse go'aan leh laakiin haddii isagii la waayey isagana qadar ah ku dheggan macnaa iyagu masaarida waxay rabeen farmaajo inay keenaan oo macnaa dalkan macnaa ay ku fariisiyaan laakiin hadda weli kama quusanin dib ay u dhigteen waxay doonayaan in bridge ay ka dhigtaan qolyahan hadda macnaa jabhadaynta ku wanaagsan oo ma arkayse macnaa qaybaha kala duwan ee isugu jira ma arkayse qabiil walba laakiin sheekh shariif sheekh axmed 2006 sawiro sheekadu meeshaas bay macnaa noqotay waa hadhahadha xamse cabdi barre magaalada muqdisho magaalada qaahiro u soo socdaa beritoole haddii allah uu dalay uu ka raali noqdo sidoo kale waxaa ma arkayse qaahiro beritoole ku wajahan si qarsoodi ah madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed marka xasan wuxuu la kaadkaadinayo waxbuu dareensan yahay marka hiiraanu isku qaadaya hadda ama hiiraanu isku qaaday wuxuu rabaa inuu yiraahdo hal iga qaleeyo aniga dagaalan ku jira shabaabaan la dagaalamayaa laakiin shabaabaan la dagaalamayaa ma kaa saaraysaa waa ma kaa saari kadhaa shabaabaan la dagaalayaa hadha baan galayaa ma kaa saaraysaa la dagaalan ama la dagaalamin hay gogoshi haddaan qabanaya uu tuugtamaya hadda gogolaan qabanaya khaliifka la iga odayeeyo wasiiruu diray ma arkayse orniyo waxaas ma jiraan la yiri meeshaan shalay farmaajo markuu joogay waan u tagnay dhaxda soo dhigaa la yiri uu ogolaaday meeshaan habeenimo soo degteen waliba mawlaca nooma idan sheegin idinkoo guuray habeenimo ciidamo keenteen laakiin annagu hadda ma arkayse macnaa ciidamo maba noo imaanba dad baa noo yimaada kaliya haddana waxaan ku leenahay xasan oo bahasha dhulka soo dhig xasan sheekh maxamuud marka uu ka carooday in ma arkayse mawlacaasi la isugu tago oo la isugu yimaado marka hadde kaligeed cuntooy kaliga celceli Soomaalidu saasay dhigi jireen marka Abdicasiis lafta gareenna hadda ma arkayse dhib war male uu yaaba yahay masar hadda macnaa waxaan lagu soo dhisanayo ma aadi karo haddii masaaridu farmaajo ay helaan farmaajo uu soo amro uu yiraahdo xagga ku biir haddana markaas ku biiraa lafta gareen laakiin inta ka horeysa talaabo male xisbigan mana ka bixi karo mana macnaa toosna ugu ma jiri karo hadduu ku jirana boos celis waay ka bixitaankana macnaa farmaajo un baa ka saari kara marka annagu rahan baa naloo haystaa haddaan nahay digil aw mirifle ma been inaan isu sheegna maan moogta qofka in la dulmiyo maaha marka waxaan rabaa lafta gareen hadduu geesi noqon lahaana xisaabtiisa meeshaasi ayay ku soo dhammaatay marka insha allahu tacaala waan ismac salaamaynaynaa biidni illaahi baari dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebbe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan naftaan la isu dhiibaya la isma siinay muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddii na la kala qaato ballantanada waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam guulaysta oo liibaana mudanayaal iyo marweyn firdowsa